بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم walaalow fatwada aan soo saarnay boqolkiiba boqol baa laga rajo qabaa inay hirgasho sababta culimadii Soomaaliyeed oo gudi iyo dibadba isaga timid ayaa oo itijaahyo kala duwan leh ayaa fatwada soo saartay marka shacabka Soomaaliyeed culimadiisa uu ku kalsoon yahay waxa laga hadlina daraayi ma aha waa diin marka nimanka khawaarijta ah shariicada islaamku waxa ay ka qabto ayaa meesha lagu lafaguray marka xukunkoodana waa la sheegay marka fatwada jamaaciga ah ayaa la soo saaray oo nuxurkeedu ahaa nimankaas inaan maaragtay in lagu biiro iyo in laga mid noqdo iyo in wax la taro iyo in maaragtay loo dhagan nuglaado waxaas oo dhan shariicada inayna ku banaanayn marka fatwadii aad aragteen baa ka soo baxday marka rajo weyn baa laga qabaa inay hirgasho ayagana insha Allah qubuulatu durriye ku tahay bayaankiina waxa ku jiray in muddo 90 maalmood ah kadib shir kale aad qabataan shirkaasi muxuu kaga duwan yahay midkan aad bayaanka ka soo saarteen yaase ka soo qayb galaya waxa ka soo qayb galaya culamaa'ul islaam oo Soomaali ahayn Soomaali iyo culamo kale oo caalamka ka iman baa ka soo qayb gali gaar ahaan dalalka dhibaatada takfiirka iyo nimanka khawaarijta wadamada ay soo mareen marka khibradaha la soo imanaya waxay sidii loola tacaalay dhibaatada ay soo mareen wixii khibrad la soo imanaya marka iyaduna wax badan bay siyaadinaysaa shirka dambana arrimaha shirka waan sii anbaqaadi doonaa hase ahaatee waxaana soo gaaray saacadihii ugu dambeeyay war ah in ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ay xabsiga u dhaadhiciyeen Sheekh Cabduqaadir Soomow oo kamid ahaa wadaadadiini maxaa loo xiray ninkaas maya walaalo warka ma hayo Sheekh Soomow culumadii fatwada soo saartay buu ku jiray magaca ahlus sunna wal jamaa oo ku hadla oo fayeen u yahay xiritaankiisa ma aana maqal sabab loo xidhaana de ma jirto warka ma garanayo warkaas anigu ima soo gaadhin wali inuu suurtagal yahayna uma malaynayo Sheekh Nuur haddaan gudaha u galno oo aan wax ka weydiiyo fatwada aad soo saarteen marka la eego siiqada hadalka iyo talooyinka aad siinayseen laamaha ammaanka ee dawladda iyo shacabka iyo dadka aqoonta leh waxay leeyihiin waxba kama duwanayn war-saxaafadeedyada ka soo baxa Mareykanka iyo qaramada midoobay saa wax daliil ah ma wadane hada fatwadu nusuus way wadataa dhibaatadu waxa weeye meediyaha marka fatwa waxa marka barnaamij laga sii deynayo waa la soo koobaa laakiin fatwadu way qoran tahay nusuustii iyo xadiis iyo aayadna way wadataa way ka buuxaan laakiin marka meediyaha lala hadlay hada meediyaha war badan ma sii deynayo qodobadii oo kooban baa la siiyaa marka laakiin ninkii raba fatwadii adiladeedii wadataa way taalaa waana website-yadana la soo galin insha Allah shirkiina waxa ku jiray wadaadaha qaar oo si cad u sheegay in fadwadan aad soo saarteen iyo fakarkan aad kula dagaalamaysaan xarag jawaal mujaahidiin in sarkaal Ingiriis ah oo ku taliyay marka soo lama dhihi karo waxa daliil ka dhigateen nin Ingiriis oo gaal hadalkiisa hada wax saayir anigu maba aana maqal Ingiriis culamo fatwa soo saari iyo meel diin lagaga hadlayo Ingiriisku waa wadan gaala shaqul kuma laha mana aana maqal anigu gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo afhayeenka ayaan ahay sheekada ana lama socdo shirkan abaabulkiisii hore culimada soo jeedisay oo wuxuu ku yimid Sheekh Cabduqaadir Nuur Faaraxayaanti asagoo salaad ku jira garowga lagu dilay tacsidiisii ka qayb galay tacsida qabriga korkiisa anagoo joognaa fakarka culimadu soo jeedisay dawladda Soomaaliyeedna meeshay ku aqbashay intii ka dambeysayna shirkan uu abaabulkiisii waqtigii la qaban lahaa loo diyaar garoobayay marka arrin Ingiriis shaqul ku leeyahay ma waa dicaayad raqiis way waxaas Sheekh Nuurow hadalkaas waxa ka dhawaajiyay adiguna goobjoog ayaad ahayd Sheekh Ugaas Axmed Bile oo kamid ah ragga ugu sareeya culimada ictisaamka ma waxaad leedahay arintaas oo warbaahintu baahisay dadkuna hadal hayaan waxba kama jiraan Soomaalidu waa ogtahay oo nin walba waxba iskaga hadlaa hadana nimankan khawaarijta laga yaabaa waxaas inay iyagu faafiyeen marka hadda nimanka warkoodana waxaan u maleynaa cid maqli oo dag jalaq u sinayna jirin marka culimadayba dhahan iyagu waa murtadiin iyo waa gaalo waan leenaynaa bay dhahan marka kuwaas warkoodu macna ma laha marka fatwada culimada Soomaaliyeed bay ka soo baxday dawladda gaar ahaan shaqul kuma laha
marka shacbiga Soomaaliyeed taa hadda way garanayaan baan filayaa. waayahay Sheekh Nuurow warkaas suuqa sida weyn ugu jira adigana aad tiri al-shabaab ayaa faafiyay waxna kama jiraan bal annaga ayaa hayna ka idaacad islaami ahaan codka Sheekh Ugaas Axmed Bile uu ku yiri sarkaal Ingiriis ah ayaa nagula taliyay in mabda'a jihaadiga ah aan kala hortagno mabda' burburinaya haddaba waa kan nala dhageyso dad Ingiriis oo irhaabka u qaabilsan baa mar aan Ingiriiska tagnay wuxuu yiri wadamakan Misriina loo dagaalami karo dawladda lama dagaalami karaan ولما إن وكان فكر بينه أي دوك كله هينا فكر كفوجا دين إنجليز أو إرهاب كوقع بسبب مرة عن إنجليز كتجدي وحويلي ولما كان مثل مثل الله تجعله كذا الدولة لما تجعله كرامة ولما إن وكان فكر بينه أي دوك كله هينا فكر كفوجا وران كعنه الشيخ نور واد مقشي سماهن عدك وجاس أحمد بلي وان مقلي الدواء تاسي واحد أنا ملها من إنجليز يجيبوا يري فكر كإرهابي فكر بالغلط دجالنا كلا دنين إنجليز ساووا ده كلا أنا قلنا سيدا سام قبنا هدي أتسلا قبطان أو نكاس إنجليز قال كأحد كفكر تهين سإسليدهن أمدن الصوماليات المسلمين تأوي كأقبليان بيانات كأتصو ساريسان تنكلسوا الله سبحانه وتعالى مؤوسا دهن يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين سيدكو أدعي إيسان وأدكو قادن إيسان نمكاس قالة أهور كودا إنجليز أنه تلك مقادا فكر علماء كي يمدوها علماء ديوانا هذا هيرجريسي مركا أرنتيان لقلعي معها لكن شيخ نور حتى هدان عقلك سليم كأه الله بنا سو عابدين كما نقونيسو أدينكو علمادي sheeganaya in ninkaas Ingiriiska hadalkiisa aad daliishataan marna aad tiraahdo waan ku qanacsanahay waa sax marna aad tiraahdo gaalada hadalkooda ma qaadanay waa fikirkeena baya ceeb ma noqonayso bini'aadmiguna macluumaadka way isweydaasadaan marka waxay ceeb tahay iyo wax mid dhibaato ay leedahay midna ma leh waayahay taas aan ka soo gudubno wadanka Soomaaliya dhibaatada taala Sheekh Nuur waxa halbowlo u ah ciidamo shisheeye oo soo duulay oo gaala ah maxaad uga hadli laadihiin ciidamadaas oo aad isugu mashquulinaysaan ragga mujaahidiinta ah ee naftooda iyo maalkooda iyo dhiigoodaba u horaya sidii ay wadanka uga difaaci lahaayeen ciidamo shisheeye hadda ma aha mushkiladu ciidamo shisheeye ma aha ciidamo shisheeye waa la keensaday dhibaatada wadanka joogta inay wax ka qabtaan baana loo keenay waxaad ogtahay 2009 markii hay'adda culimada la sameeyay inaan shabaab iyo xisbul islaam iyo wixii dagaalamay aan ugu baaqnay inay hubka dhigaan ciidamada shisheeyana 4 bilood ay dalka kaga baxaan marka iyaga diiday oo dagaalkii sii waday marka ciidamada shisheeye waa ciidamo dawladdu ay ogtahay oo nidaam ku yimid nidaam hadana ku baxaya marka dhibaatada ciidan shisheeye ma waa shabaab dhibaatada waxaad ka mid ahayd culimadii fadwootay inay murtadiin yihiin raggii hogaamiyay kooxeedyada sagaalka ahaa ee Mareykanka uu dhaqaalaha siiyay waxyaabaha aad fadwadiina u daliishanayseen wax cad ay ahaayeen ayado quraan bay ahaayeen waxaana raggaas dhiigooda lagu xalaashaday Mareykan oo ay u shaqeeyeen haddaba ciidamadan aad leedahay waa la keensaday sow isla Mareykankii ma keensan sow isla mabaadi'dii kama shaqeynayaan maxaad kuwaas ula dagaalanteen oo waliba Soomaali ah kuwana aad u leedihiin waa la keensaday maslaxad bay ka shaqeynayaan maya kuwaas waxay ahaayeen niman Mareykan watay bay ahaayeen waxayna yiraahdeen maxkamaduhu shariicada islaamka in dalka lagu xukumay rabaan sidaas ay u sameysmeen niman cadaawad diineed qabay ahaayeen aan ka dhaxgalay marka ma waxaad leedahay haddii hogaamiye kooxeedyadii ay qabeen cadaawad diineed oo gaala ay u shaqeynayeen kuwan oo gaalo asli ah cadaawad diineed ma qabaan maya cadaawadii ciidamadan shisheeye waxay u yimaadeen diin ma aha waxay u yimaadeen waa ciidamo Afrikaana waa ciidamo iigad ah waa iigadna waxay u timid waa loo yeedhay niman xoog ku yimid ma aha markii la rabana way baxayaan waxay u yimaadeen waa ogtahay wadanka shabaab baa qabsan gaaray magaalada Xamar waa kii la dhihi jiray 4 kiiloomitir mooyane magaalada shabaab baa ahayd marka wadan cadow qabsan lahaa bay cadowgii ka saareen oo ay dhaafeeyeen oo dhibaato weyn u geysteen marka cadaawadii may bahayaan xeryahoodii ku jiraan shabaab bay la diriraan maalintii loo baahdana way baxayaan marka waxaad ugu warwareegi ma garan ciidamadan AMISOM
waxay yihiin waa la ogyahay. Sheekh Nuur, magaca aan kugu wareysanayno waa taytal culimo, waa culimadii fadwada soo saartay. maxaa u daliil ah inaad tiraahdaan mujaahidiinta waa cadow, ciidamadan ummadda Soomaaliyeed ay u gargaarayaan? Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku leeyahay la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum. marka daliil mana siin kartaa aayad ama xadiis sheegaya in gaalada ay muslimiinta u gargaari karaan Afrikaanimo ama Eeshiyaanimo? Afrikaanimo way ugu heeliyeen nimankan hadda arrimo diimeed oo ma joogaan. muslim iyo gaalana way isugu jiraan, gaalo kaliya ma aha. wax kasta hatta hadday gaalo yihiin arrintu hadda ay wadankan u joogaan arrin diimeed ma aha, waa nidaam dawli ayaa jira. nimankani nidaam dawli ayay ku yimaadeen, nimankaas inay la diriraan bayna u yimaadeen. qadiyad diimeed ma farageliyaan, masaajidkii ridiisa dadka isuma taagaan, xeryahooday ku jiraan, shabaabbayna la diriraan. kolkii loo baahdana way baxayaan. waxa la isku haysto masaajid ma ahan oo haddaba gaalada way ogol yihiin inaad dukato, inaad soonto, inaad xaj ka aado, dayuurada raacdo, boorsooyin waaweyn qaadato, qamiis qaadato. waxaas la isku haysto, waxa la isku haystaa shariicada islaamka ayaa shaqeynaysa iyo dimuqraadiyadda ayaa shaqeynaysa. dadka aad leedahay nidaamka dawligana waa qaramada midoobay iyo Mareykanka. marka Sheekh Nuurow, ma waxaad leedahay Mareykan oo gaal ah iyo qaramada midoobay oo ah dawaaqiida ugu sareysa caalamka ayaa waxay ka shaqeynayaan maslaxada ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed? maslaxada ummadda Soomaaliyeed bay ka shaqeynayaan. wadankan al-Qaacida ku soo duushay, khalkhal baa ummadda nolosheedii la geliyay, wadankii baa la dhamaynayaa. marka nidaam dawli ayaa jira. wadankii dhibaato sidaas oo kale ay ku dhacday in loo gurmado ciidamo la geeyo. marka nidaamkaasay u joogaan, niman diin hadda ku soo duulay ma aha. waa tahay Allah